بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socotay idilkeen ba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabin ku saabsan barnaamijka wararka barrow iyo faaqidaada akhbaraadka Israel ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay hakisay qorshe la doonayo in lagu laqo daanta galbeed kadib cadaadisyo kala duwan oo ka yimid Mareykanka madaxweyne Trump ayaa waxa uu yiri hadii Israel ay isku daydo tallaabadaasi inay qaado waxaan guud ahaanba meesha ka saari doonaa taageerada aynu siino nidaamka Netanyahu hogaamiye taas oo ka dhigan in Israel ay dareemayso wajigaba xoog leh isla markaana ay ku qasbanaatay sida raadiyaha ciidamadooda uu baahiyo tallaabadaasi in dib loo dhigo go'aan marmarsiyo ah ayuu ku dhawaaqay wasiirka amuraha dibadda ee Gideon Saar lagu magacaabo haddaba waxyaabaha uu sheegay maxaa kamid ah barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa khiyaarta inala socotay Bezalel Smotrich wasiirka maaliyadda ee xaq jirka ah ee Israa'iilna waxa uu si la yaab leh u weeraray wadamada Carabta waxa uu yiri wadankan Sacuudiga ah ee saxaraha lama deegaanka jooga hadii ay doonayaan inay Falastiin dawlad ka dhigaan iyaga ayaa tooda daryeeli lahaa sida daraadeed qorshe kasta oo ay meesha keenaan inaga naguma soconayaan dawladaha aqliga iyo fikirka leh oo kaliya aynu isfahmi karnaa oo arrimahaas oo ayna ka wada shaqeyn karnaa ayuu yiri hadii se ay doonayaan in ay sandulle inooga dhigaan waxa ay rabaan waa ka jawaabi doonaan haddaba ma waxa ay ka dhigan tahay Smotrich in uu leeyahay taariikhdeeni ayaanu daba soconaa oo waxaynu doonaynaa dhulka Sacuudi Carabiya ee Israa'iiliyiintu ka deganaa jireen mase waxa uu daboolka ka qaaday qorshaha Benjamin Netanyahu oo wada ee ahayd baahinta Israa'iisha weyn ee gobolka bariga dhexe rag baa isku muuqda warbaan idinka oran doona qodobkana kooxaha Falastiiniyiinta ee kala duwan ayaa ku kulmaya magaalada Qaahira Fatah iyo Hamas ayaa is arkaya arrintan oo si weyn loogu gorfayn doono xaaladda mustaqbalka Falastiiniyiinta iyo baadigoobka dawladda maqan Qaahira دور نوعي أي كويا لنايسا طلابة قادم برلمانك إسرائيل كنيسة ليراهدو أيا صاوبي دونيدا إن عروين كقادة كدي مركي دولة وين إسلا يابلا وقفل عليين أرنتاز وحا أي كوساب سنيد مركي لبلابي أخرين تقوات هندسة شرعية دي سوچيديين حبنا كلا دوان أو كوساب سنا إن دان تقلبيت قدهان بلالقو سلامر كان اللوايا ميل عربتو أي كوكور غورتمان أو أي كراديان دولة فلسطينيين تو إليهين raadinta xal laba dawladood oo dawladad badan oo caalamka ay soo jeediyeen oo Falastiiniyiinta Israa'iiliyiintu ay kala yeeshaan oo kala madax banaan ayaa waxay noqotay mid hadda si weyn ay Israa'iil ugu aragtay in ay ka hor imaanayso jiritaankeeda taas oo dhalisay in doodu ay si cuslaato isla markaana arrimo fara badan ay keenaan dawlado waaweyn ayaa haddaba ku gacan saaray tallaabadaasi midowga Yurub oo kale waxa ay yiraahdeen waxaynu doonaynaa in xiriirka ganacsi iyo waliba kan military aan la leenahay Israa'iil iyo kan diblomaasiyadeed ba meesha laga saaro in kasta oo Gideon Saar oo arrimaha dibadda u qaabilsan Israa'iil uu yiri taasi hadii ay sameeyaan waynu ka jawaabi doonaa haddana oday kaba weyne oo Mareykanka ah ayaa meesha soo galay waxna muuqanaya in Israa'iil uu waaga ku bariyay haddaba warbixin uu qoray raadiyaha ciidamada Israa'iil waxa lagu yiri ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay in uu amray in la joojiyo dhammaan mashaariicda la xiriira ku fidinta maamulka Israa'iil ee daanta galbeed sida ay baahiyeen warbaahinta Khamiistan telefishinka 12aad ee Israa'iil waxa uu yiri xisbiyada ku jira isbahaysiga dawladda ayaa ku dhawaaqay in sharciyada la xiriirta ku fidinta maamulka Israa'iil ee daanta galbeed la hakiyay ilaa iyo amar dambe sida idaacadda ciidamadu ay sheegeen iyagoo xiganaya madaxa isbahaysigaasi Ofir Katz ayaa waxa uu yiri Netanyahu waxa uu ugu amray in aanan sii wadin ololaha lagu hormarinayo sharciyada cusub ee la xiriirta maamulka daanta galbeed arrintan wax la dheelsan kara ma aha marka la fiiriyo cadaadiska Israa'iil ee hadda wajahayso arrinta ayaa timid kadib markii kaniisad waa baarlamaanka Israa'iil oo arbacadii shalay ahayd u codeeyay in la guda galo dood ku saabsan laba mashruuc oo sharci ah oo u gogol xaaraya ku fidinta maamulka Israa'iil ee daanta galbeed taas oo dhacday maalmo yar kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhaxdhaxaadiyay heshiiska xabad joojinta ahaa ee lagu soo afjarayay
dagaalkii labada sano socday ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta isla markaana si weyn u ruxay magaalada go'doonsanayd muddada dheer ee ku dhawaad 70,000 ay qof lagu dilay muddo 24 bilood ah waa Gaza. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance ayaa Khamiistii sheegay in Israa'iil aysan marnaba ku dari doonin baaliiri daanta galbeed dhulkeeda isagoo amray in tallaabada noocaas ay halis gelin karayso xabad joojinta jilicsan ee Mareykanku uu garwadeenka ka yahay. dhinaca kale arrintan waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo Mareykanku uu si weyn uga soo horjeestay guud ahaanba tallaabadan cusub ee soo baxaysa. madaxweynaha dalka Mareykanka Trumpna waxa uu leeyahay haddii Israa'iil ay isku dayaan tallaabadaasi dhammaan taageerada kala duwan ee ayna siino ayaa meesha ka bixi doona taas oo qasbi karaysa in bannaan cidlo ah iyo bannaan bawada ay ku dhici karaan waa sida Trump uu doodiisa u dhigayo. aan eego warbixin telefishinka Abu Dhabi ku yaala Sky News Arabic uu qoray arrintan ku saabsan waxa uu leeyahay telefishinku madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wareysi uu siiyay majalada Time ku baahiyay in uu sida uu u dhiirigeliyo heshiiska xabad joojinta ee Gaza iyo aragtidiisa ku aadan mustaqbalka gobolka Bariga Dhexe. markii la weydiiyay sida ay Hamas u wajahday baabi'inta buuxda baa la yiri haddii aysan u hoggaansamin heshiiska Trump waxa uu yiri waa hubaal waxay wajihi doonaan dhibaato weyn waliba waa dhibaato weyn ayuu markale yiri waxaan hadda socda buu yiri tallaabooyin ay ka dhana kooxaha hubeysan oo lagu tilmaami karayo kuwa dambiilayaal ah laakiin su'aasha waa goorma ay kooxahaasi isu rogi doonaan buu yiri mucaarad siyaasadeed ayuu Trump hadalkiisa u soo rogay waxa uu leeyahay war kooxaan intaanay hubka wadan may mucaarad siyaasadeed noqdaan malaha odaga isaga Mareykanka iyo wadamadiisa buu yaqaanay nimankan oo dhulkooda la haysta ayuusan ba ogeyn ma dib uu ka xasuusan doonaa waa su'aasha taagan. markii la weydiiyay sida lagu qasbi karo kooxdu in ay hubka dhigto Trump waxa uu ku jawaabay waa in la farageliyaa buu yiri haddii aanay samayn taasi laakiin sida muuqata way ogolaanayaan haddii aysan ogolaana saxda ayay wajihi doonaan. Trump oo sidoo kale ka hadlay xiriirka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay joojiya dagaalka uu sii wado joojinta dagaalka uu sii wadin lahaa Netanyahu kaas oo socon lahaa sanado badan waan joojiyay waxaan arkay dunida oo dhan oo isku mid noqotay markaasi waxaan sameeyay qalad weyn oo la xiriira arrinta ama qadar arrintii uu ku sameeyay weerarka waxay ahayd qalad weyn laakiin dhab ahaantii qaladkaasi ayaa sababay in dhinacyada si dhab ah ay u midoobaan si loo gaaro heshiis xabad joojina marka waxa uu leeyahay waxaan ku ogaaday dunida inaanay isku mid ahayn oo xaaladda sii xumaanaysa markii ninka Netanyahu la yiraahdo uu weerar ku qaaday qadar sida daraadeed meel baa la taabtay meesha la taabto ma taqaanaa waa danaha Mareykanka ee qadar yaala maadaama saldhigga Cudeyd ciidamada cirku ay degan yihiin qadarna ay saaxiib dhow la tahay dowladda Mareykanka halkaasina shidaalka laga qaato wax kala maaha. arrinta ku saabsan daanta galbeed ayuu soo hadal qaaday markii su'aal laga weydiiyay sababta uu uga hor yimid Israa'iil inay ku darto daanta galbeed dhulkeeda Trump waxa uu yiri taasi marnaba ma dhici doonto mana dhici doonto sababtoo ah waxaan ballan qaaday ama ka ballan qaaday buu yiri dalalka Carabta nin weyn oo ballan leh oo oday ah oo lagu dhiirada ayaa ah marka ninkan la yiraahdo Netanyahu ima garxiirayo ayuu leeyahay oo saaxiibo badan oo Carbeed iyo dunida Islaamka ayaa ballan ka qaaday marka wuxuu leeyahay ma dhici karaysa hadda waxaan helnay taageero weyn oo Carbeed ma burburi karna taasi haddii Israa'iil isku daydo inay ku darto daanta galbeed dhulkeeda waxay lumin doontaa dhammaan taageerada Mareykanka marka waxa uu leeyahay aniga nimankan Carabta la yiraahdo ee shidaalka ka qaadano ee saaxiibada aan nahay ayaan ballan ka qaaday sidoo kale ku jiray wadanka Pakistan oo hubeysan oo nuclearkiisa watay iyo wadankan Turkiga oo ogtihiin NATO askarta igu xigta xagga tirada iyo tayada inay leeyihiin marka haddii ay tallaabadaasi qaadaan oo wadamadaasi ballanta uga baxo waxa ii fudud inaan iraado Netanyahu saaxiib la cayaar daruuraha
dabeylahana la cawe marka adiga kaliga bay kugu soo haraysaa buu leeyahay intaasoo dan iyo aragti ah Mareykanku ma lumin karayo mustaqbalka maamulka Falastiiniyiinta ayaa Trump la weydiiyay markii la weydiiyay hadii uu arkay Maxamuud Cabbaas inuu maamulo Gaza kadib dagaalka waxa uu yiri waan isfahanaa waxa uu u muuqdaa qof macquul ah markasta oo laga yaabo buu yiri in uu sidaasi ahayn laga yaabaa inuu sidaas ahayn wuxuu aad ii soo dhaweeyay xilliyo kala duwan laakiin wali waa goor hore in la qiimeeyo waqti dambe ayaa go'aan ka gaari doonaa arrinkaasi waa Cabbaas in talada wax looga darayo oo ninkii Tony Blair ahaa meesha laga saari doonay in kale iyo guddi farsamada in loo baahdo laakiin wuxuu leeyahay waa nin fiican oo macquul ah laakiin waxa uu baahan yahay waqti hore ayaa hadda la joogaa bal ninkan inaanu sii daraasayno Trump waxa uu sidoo kale sheegay inuu go'aan ka qaadan doono codsiyada lagu dalbanayo in lagu sii daayo Marwan Barghouti ninka la yiraahdo hogaamiye ka tirsan Fatah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil ninkan hadii uu soo baxayo waxa la leeyahay waa siyaasi gaamuray oo rugcada ah kaasoo Israa'iil ay walaac ka muujinayso soo bixitaankooda xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga ayaa la weydiiyay majalladan The Time maanta wax ay dhaafto male meel kasta oo wax laga weydiin karo odagan ayay su'aashan ka weydiisay madaxweynaha Mareykanku waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in heshiiska nabadda ee u dhaxeeya Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil uu aad u dhow yahay la gaaro waqtigii la sameyn lahaa wuxuu leeyahay waxa la filayaa in Sacuudiga uu booqan doono wadada ku beerista haye heshiiska Abraham runtii waxaan aaminsanahay inay dhici karayso buu yiri koor dhamaadka sanadkan ayuu Trump hadalkiisa ku celiyay laakiin su'aasha taagan waxay tahay dalabkii Sacuudiga ma la aqbali doonaa Trump wuxuu leeyahay dooda Soomaha bal halkan soo eeg wasiirka maaliyadda ee bahwadaagta la xisbiyada xukuumadda ku midaysan ee Netanyahu hogaamiyo Bezalel Smotrich waxa uu leeyahay dawladdan Sacuudiga la yiraahdo iyo kuwan Carabta ee saxaraha geela ku eriyada markasta waxay banaanka keenaan wax la yiraahdo dawlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo hirgasha waxaan leenahay buu yiri geelina habeedda la jooga hadalkiisa waa sidaas oo biyo la marin waraysi uu bixiyo laakiin ay Lapid oo mucaaradka wuxuu leeyahay war Carabay raalli ahaada qaliijow raalli ahaada ninkan aad u jeedaan ma matalo waa nin qoray dable iyo burush saxara la wareegaya dooda marka labada dhinac marka la isku aqriyayo saas u dhigmaysaa aan eego wargeyska la yiraahdo Al-Arab al-Jadid oo arinta wax ka qoraya waxa uu leeyahay wasiirka maaliyadda ahna hogaamiyaha xisbiga Israa'iiliga diiniga ah Bezalel Smotrich ayaa qamiista maanta si kulul uga hor yimid fikrado ay ku saabsan xiriirka Sacuudiga iyo Israa'iil waxa uu yiri hadii ay doonayaan in ay dawladda Falastiin aqoonsadaan malaha waa riyoonayaan waraysi ayuu siiyay wargeys lagu magacaabo Mokor Russian oo Israa'iili ah waxana uu ku dhawaaqay hadallo abuuraya nacayb takoor iyo waliba wax u muuqan kara aflagaada baa la yiri taasi oo uu kaga gacan saaray aragtida in la sameeyo dawlad Falastiini ah ninkan oo la weydiiyay bal ka waran dawladda Sacuudiga waxay rabtaa in la dhiso dawlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin si Israa'iil xiriir ula sameeyso maadaama tahay nin xisbi leh wasiir maaliyadeed xukuumadda bahwadaag la saaxiibka ra'iisul wasaaraha arintan sidee kula muuqata ayaa su'aasha loo dhigay waxa uu leeyahay hadda marka jawaabtiisa aan idin akhrinaya waxa uu leeyahay su'aashan dhab ahaantii waa mid ku saabsan madax banaanida Israa'iil ee daanta galbeed horta koow fahan ninkan daanta galbeed ba in Israa'iil ay leedahay oo la gumaysto oo ay maqan tahay ayuu arkaa waxa uu leeyahay hadii Sacuudi Arabiya ay tiraahdo caadiyeynta xiriirka aan idinla yeelanayna bedelkeeda waxaynu dhisaynaa dawlad Falastiin jawaabteenu waa mid cad buu leeyahay maya waad mahadsantihiin wixiina haysta Sacuudiyo wixiina iyo xiriirkeena haysta buu leeyahay wax si aad ninkan wuxuu leeyahay si wada fuulista geelina habeedda leh ee saxaraha geelina majaha damba habeedda kule saxaraha ku eriyada ayuu leeyahay nin dad aqliyada leh in Israa'iil balla gorgortamaan ama wax la weydiiyo ma ahayn ayuu doodiisa ku daray waxa uu leeyahay inagu waxaan sii wadi doonaa horumarka dhaqaale iyo waliba wuxuu leeyahay bulsho ee wanaagsan
aynu tiigsan doono aqoonta ku salaysan marka halkaas ayaan inaga u jeednaa marka isku garaadba ma ahayn ayuu doodiisa u dhigay wax badan oo la qarin jiro ninkan banaanka keenaya hadalkan ayaa yimid kadib markii baarlamaanka kaniisada Israa'iil uu shalay ansixiyay akhrinta koowaad ee sharciga ay hadda doodo fara badan ay ka yimaadeen hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'iil ninka la yiraahdo Yair Lapid ayaa si degdeg ah uga jawaabay hadalka Smotrich waxana uu qoray qoraal waxa uu leeyahay war saaxiibadeena boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dawladaha bariga dhexe waa la idin gafay cimaamad baan idin saarnay inaga daba soconna hadalka ninkan uu jeediyay Smotrich ninkan ma matalay raali ahada Smotrich ayaa haddana mar kala hadlay waxa uu leeyahay waxaan joognaa iskoys taariikhi ah haddii aan reer Israa'iil nahay waxaan ku jirnaa buu leeyahay xiriirka waa inaan jirnaa xiriirka been abuurka ah ee nagala dhaxeeya dalalka Carabta iyo waliba sheekada la yiraahdo shacabka ama arinta Falastiin ayaan baadi goobaynaa waxaan hubnaa in aanay dawlad Falastiiniyiintu leeyihiin waligood aanay ka dhisi doonin buu leeyahay halkan marka riyada been abuurka ah iyo waliba waxyaabaha aan soconayn waa inay ka gudbaan dawladahan ayuu hadalkiisa ku dhigay waayahay وفانتو ملاينيا فكردي يحيابي لقرين جرايا صوبحي نمانكان إسرائيليين رقودا كي إيمانيا أبترسيغا ديماه وحي آمسيهين عربتا إناني هاين بدد أخلي بدن وقيل حبيط له وسيدا إليهين دولك الصحراء كرادية بدل كي نولي أقوني كفكري لهايين لأنه واركان دولكان شدالكا يحياباني سو ساريان وح إسرائيل إليه ضحي maalin aan maanta hayna u iman doonto Smotrich dooda soo qaba warkiisa waa cad yahay dhinaca Masar baan eegayaa iyo wararka ugu waaweyn ee ka taagan dalka Masar Qaahira magaalada caasimadda ah waxa ka soconaya kulamo istiraatiiji ah oo isugu imaanayaan kooxaha kala duwan ee Falastiiniyiinta waxay ka waramayaan sida xaaladoodu ay tahay iyo waliba qorshooyinkan cusub sida loo wajahi doono waxay leeyihiin warma halganaa oo rag baan nahay gobonimada ma ku raadinaa muruq mase waxaynu raadinaa dadkii waa baaba'ay si un baan isku dabcinaa mase waan sii adkaanaa oo waranka iyo gaashaanka garabkeena kama saarayno marka telefishinka Al-Arab Al-Jadid baa hadlaya waxa uu leeyahay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ayaa maanta oo Khamiisa marti gelinaysa kulan heer sare oo isugu imaanayaan hogaamiyaasha kooxaha Falastiin iyagoo lagu wado in arrimo siyaasadeed iyo kuwa amni oo muhiim ah ay ka wada hadlaan shiiska xabad joojinta ee Qasayl wareedyada Masar oo diblomaasiyiin ayaa sheegaya in Hamas ay u sheegtay iyo Hamas ayaa u sheegay Al-Arab Al-Jadid in maanta qorshaha uu ahaa laba kulan oo kala ah kulan guud oo ay ka qayb galayaan kooxaha Falastiiniyiinta iyagoo ay goobjoog ka yihiin sirdoonka guud ee dalka Masar kulan gaar ah oo u dhaxeeya hogaamiyaasha Hamas iyo Fatah kaas oo la sheegay inuu yahay mid go'aan qaadasho ah oo mustaqbalka gobolka bariga dhexe si weyn loogu jaangoyn doono ajandayaasha kulanka ayaa ah mid kamid ah ila wareedyadu waxay hoosta ka xariiqayaan in kulamada diiradda lagu saari doono arrimo muhiim ah oo la xiriira hubka iska caabinta maamulka iyo nidaamka siyaasadeed ee Qasay inta lagu guda jiro marxaladaha kala guurka ah iyo sida mustaqbalka Falastiiniyiinta maalinta xigta ee dagaalku uu noqon doono waxyaabo badan ayaa diiradda la saari doona waxana ay u muuqanayaan hadda Falastiiniyiintu inay gaareen waqtigii isxaal wareysan lahaayeen laakiin Xasan Rashaad oo taliyaha sirdoonka oo daraadna joogay Masar ka tagay oo joogay Israa'iil ayaa maanta dhaxdhaxaadinaya